الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا ما هذا ودان وسقناتي عليه نصر تقلي موضوعا ولا ليال موضوع رنعانتي أو آد وفائدة بدن أيام ربامانتي إن إزدول تاجا نبى النبي ويمت صلى الله عليه وسلم إساقو حاسكي سكاشتكونا وعير رسولك إلهي يو حاسكيga nin gacan u soo taagay jacbi iskama dhax waa gacan dheerta macnaha laga wada nin gacan u soo taagay oo ajnabi ka ah war idaf ba iskama dhaxdo leey nabiga ayaa carooday markaas wuxuu yiri sarriha sida wanaagta taasna kuma ahe naag gacan loo soo taagay jacbi nimanka aan iska dhigin naag kuma noqonaysa fur ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam sarriha sida alla raggi iyo dumarka waxba kala haysto wallahi jecel Soomaa kii jecel ahaa laakiin meeshii yaala wuxuu yiri rasuulka ilaahay waan jeclahay xaaskaygu la ilaaha illa oo way hada jeceshay waxa uu iimaanaysa way rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu yiri orado hadaba hayso way yiri hadii aad jeceshay saliyal marka fura yiri wuxuu leeyahay ma furi kariyo waan jecel hadana wuxuu yiri nabiga orado hadaba hayso marka u fiirso walaaliyaal qoys dhisan oo la burburiyay ilaahay agtiis wax ka dambi weyn malaha shaydaan uu ku farxa waxyaalaha ugu farxad badan yahay shaydaan waa qoys in la soo burburiyo zina markii qofku uu zinaysta si fiican u farxa qof hadii qof uu dilo si fiican u farxa laakiin maalinka laba qoys uu kala geey maalinta wuxuu ka farxad badan yahay haddana rasuulku wuxuu leeyahay fur qoyskan raba rasuulku inuu burburiyo wuxuu burburinaa rasuulku waxay tahay walaalayaal dhaqan xumada meesha taala ayaa ka daran in qoyskan la burburiyo furiinka ayaa dham oo xal ah marar qaar in dhaqan xumada lagu sii socdo maxay rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu aljannata dayuth nabi wala weydii wama dayuth rasuulku ilaahay dayuth maxalla wuxuu yiri waa ninka reerkiisa akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada raaliga uga oo ku fiirsanay janno ma galay xaaskaada inta fadhisa nimin ajaanibay salaamaysa nimin ajaanibay dhex fadhisa akhlaaq xumo way adigana wax xasaasiyad ah iyo wax dareemo ah iyo wax danqasho ah mala qofkaas jannada ilaahay isma arkaayo nabi rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadaba waxaa loo baahan yahay walaalayaal guriyaha waxyaalaha burburin kara inaad ka fogeysid gabadhan inay ka fogaato ninkan inuu ka fogey gurigiisa maxaa yeelay gabadha waxaa laga yaabaa inaad nimin bartid kan waa saaxiibkay bara abay kan waa in adeerkay bara wax weyn markiida aad kulma ah saaxiibadaad guriyaha baraysaa laakiin dhibaatada kaaga imaan karta hadhow qofkan hadhow hadii aad meel aadid oo guriga u yimaado gabadhan ma fiijin karta adaa ileen baray waa inay wax ku qasbada inay soo dhaweysay hadalla macaan oo kula hadli abay seeta xabiibti oo kale ahay adiga waa maqan tahay bilo aadan qalbigiisu waa nugul yahay gabdhaha qalbigooda waa la soo jeedin karaa hadal yar lagu dhihi biriyo hadan u soo noqoni birta ma ku soo noqoni maalinta dambe khalaas naagta isma haysan yaa u keen waxaas adaa u keen gabadha xageeda aan u imaanay gabadha waxaa la rabaa inay ka fogaato qof kasta oo ajnabi ah intay carar karta ka cararto gabar yahay carar inta carar karta maxaa yeelay maslaxadaada ku jirta walow in adeerkaaba Allah ka dhigay in adeerkaada miyaad ka shakinaysaa may in adeerka Allah ka dhigay ha soo dhaweysan haddii kale
hadhow adiga baa ka aaqshaleen nabiga sallallahu alayhi wasallam wala weydii maanta badana walaalayaal in adeerka iyo in abtiga iyo dadkan ku dhow qaraabada ay dadka kama shaqeeyaan gabdhaha badana waxay kan in adeerka waaye kana ma hatta weysiga ma jibinaya dhahan qarkood waxay dhahan kan waxa waa in adeerkay macaano ay dhaleen war adeerka hadduu dhalay xeer kuma qabanay miya kuma guursan karo miya qaarkood waxa arkaysa ayagoo gacmaha isku salaama oo saam dhahay gabdhaha ku ugu xishoodka badan ayaa waxay leeyihiin niyo adiga gacanta qaad ajnabi ah kalne markaas waxaan tawaabo doqon ribaadi waayo waa ka dhacsan tahay maxaa la jir waaqac ka dhacsan tan saan leh ku taabtay maxaa ku dhacay gabdhaha marka hadalla markii lagu yar tuuro oo la dhaha oo la yar daacaday oo la yiraahdo tawaabo doqon waa ribaadi adduunyo ma wala socoto saan leh ku taabtay waxaan waa fashion markay iyadana wax hoos fiirin aan saas kama wadin mugtahay iskala aqal lagu soo galaya reer baadiyaan ahay dheh bedelkii uu aqal kugu soo galaya reer baadi waan ahay ordo ila dheh maxaa yeelay badana walaalayaal in adeerada lagama shakiyo guryahana badana waxyaalaha duuyo ay kamid yihiin waxaa arkaysa gabadh in adeerkeeda hab gacanta dhac laabta lisgelinayo walaalayaal soo jeed يعني waxaad kama shakilaysa nin kala iska ilaalinaysa laakiin nimanka kala kaaga daran ninkan nabigu waa la weydiiyay nabi allow in adeerka ka waran wuxuu yiri in adeerka ibn akhu wuxuu yiri al maut yiri waa geeri in adeerkaaga ka darno yiri ku kale waaba geeri kan waa kii lug ilaa ka jibin lahaa yiri nabi sallallahu alayhi wasallam marka hadaba gabariyahay gurigaada ilaasha maxaad ku ilaashanaysaa waxaad ku ilaashanaysaa waxa weeyaan balaaye bi intay ku soo gaarnaa iska moosaay albaabada iska xir nin horta nin gurigaada imaanaya ninkaada maqan xid nin gurigaada imaanaya ninkaada maqan maxay soo raadinayaan balaayo bay soo raadinayaan ninka markuu joogo ma yimaadaan haddii run sheegayaan qaraabo hadduu yahay waa inuu qofka la socdo gabadha lama khalwoon karta nin ajnabi ka ah in adeerkaada waad guursan kartaa ajnabi uu ka yahay adii in adeerkaada meel ma wada fadhiisan kartid ma wada sheekaysan kartid haddii kale balaayaa meeshaas ka dhacaysa maalin damba fasaad weyna meeshaas ka imaanaya marka niminka waxaan kula talinayaa guryihiina ha keenina nimin gabdhahan baxra u keensan walaalayaal masaakiinta walaalayaal masaakiinta adiga hadhow dib u keenaya adiga waxaan baray hadhowna adiga haddana cabaado qalbiga bilo aadanka ilaahay gacantiisa ku jira adiga gacanta kuma haysid waa is rogrogaya maanta qaabka tuugtamaay biri qaabka loo noqonaya marka guriyaha aan ilaashana gabdhaha ha ka fogoodaan ka carara ka dida inta aad awood kartaan nimanka ajaanibta ah walow ku dhowba Allah ka dhigay qaraabtinimada waa meesheeda qofka markuu yimaado meeshaas oo kale ama qof hal yimaado ama hadii qof saaxiibkiis uu yimaado waxaad leedahay hebel ma jooga soo dhaweyn waxa la amjir hebel ma jooga u soo noqo markaa maslaxadada ku jirto diintana saasay faraysaa nimankan waxaan leeyahay guriyihiin ilaashada nimanka maala yacniga aad guryaha ka keenaysaan ood baraysaan xasaasiyad waa inaad lahaataan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara ilaahay wuxuu leeyahy kuwa ilaahay iyo rasuulkiis rumeeyo kuwa rabbi rumeeyo ehelkiina iyo nafyaashiina naarka badbaadiye beri waa lagu weydiini gurigan adaa mas-uulka ah marka dhaqan xumada aan iska ilaalina dayuud ha noqon hadhow dayuudka janno magala وإنه فيديو هذا إله هذا أنت سعيد لجعل هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.